Assalaamu calaykum. Shirkadda Chinese-ka ah ee Huawei waxa ay bishii iibisaa 100,000 oo mobile nooca loo yaqaano Mate X ee ah telefoonada smartphone-ka. Ku soo dhawaada kanaalkeenan cusub. Haddii aad nagu cusub tahay, saar subscribe. Shirkadda isgaarsiinta ee ugu weyn dalka Shiinaha ee loo yaqaano Huawei ayaa waxay bishii iibisaa 100,000 oo xabo oo ka mid ah telefoonada gacanta nooca loo yaqaan Mate X ee isku laabma. Huawei Mate X ayaa lagu iibinayay suuqyada Shiinaha 2 bilood ee u dambeeyay, taasoo micnaheedu yahay Huawei ilaa hadda waxay iibisay qiyaastii 200,000 oo xabo oo telefoonka isku laabma ah. Huawei iyo kooxda iska soo horjeedaan ee Kuuriyada Koonfureed waa Samsung ayaa ah labada shirkadood ee safka hore kaga jira tartan si ay u keenaan telefoon isku laabma suuqa ilaa horaantii 2019 waa sanadkii la soo dhaafay.